بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku eegi doonaa oo ducaynaa basiska ku saabsan archicad ama waxyaabaha ugu muhiimsan informationska macluumaadka ah haddii nimaadno archicadkeena isticmaalana keenan waa 23 waana kala duwanaan karaa versions waa isticmaali kartaa waxaan eegnaa waxyaabaha basiska ugu muhiimsan okay hadda waxaan isticmaali doonaa tools yaalaan waxyaashan markaa windows baad tegi doontaa كبعدها تقدر تضغط بلاسس كبعدها تضغط tool بس تكون كرتا وكسوني tools كي استعمال الهاي مرات تكون كرتا هذا الاستعمال في نقطة دويس قاعد تتنا بلاسس كسور صح ما كان نافيجيت بس كسور صح وكسوني tools قاعد استعمال كرتي هذا باهن تاي مستحدث في نوعنا هي بس أنت كانوا بوم محلهم يمسون بالسوبرشن كرنا hadda oo ku wada jira baan filayaa qaybtani waxa ku siinaysaa navigatorska la yiraahdo greenska ku sameeyay history 1 history 2 history 3 ground floor-kaaga elevationadii qaybaha soo dhamaa ku jira qaybtani waxa ku siinaysaa dhammaan wixii aad u baahnayd toolbox-ka design-ska ku sameeyay oo dhan baa ku wada jira muhiimka ku ahaa deegaan qurxoon oo documentation soo dhamaa ku jira qaybaha ku shaqeynaya marka qaybaha ugu muhiimsan badanaa ee laga isticmaalo way waxaan doonaa mar labaad grids baa jira lagu sameeyo ama grids ku saabsan baa jira blankan haddii gridska ku dhaxsanaysan blankaagani aan lahayn waa soo gashan kartaa view waad ku dhufan kartaa dadka waxaa laga soo construction grids wala laga soo ku sameeyo ku saabsan soo celiyo view waad ku dhufan kartaa construction grids waad ku dhufan ku soo gaar u ka qaaday hadda haddaan hadda ku dhufto wuxuu soo noqonayaa markaas gridska cabir baa jira uu soo jiri karo marka cabirkeedaas waan eegi doonaa unit halkaa laga bedelaya isaga options baad tegi doontaa project caadi aad ku dhufan kartaa work unit baad ku dhufan kartaa markaas iska dhigaysaa mitirkaad ku shaqaysanaysa adu inagu hadda mitir baynu isticmaali doonaa decimalskaas waa wuxuu ku sheegaya pointiyadu ku sheegaya decimal baad ka dhigi kartaa 1.2 to 1.2 pointiga soo raaca iyo ku sheegay decimal kaagu okay baa siinaysaa hadda unitkeenu waa soo samaysanay kuna haddaan ku celiyo option baad tegaysaa project baad tegaysaa work unit baad tegaysaa deetna waad soo bedelaysaa okay hadda gridskaygana ku lahaa cabir buu leeyahay cabirkiisu waanu ka yaraan 2 mitir yaanu ka yaraan eegno view ku dhufo grid editing and grid background hadda 2 mitir baa ku jira waa caadi haddii 2 mitir aan ka yareeyo 0.5 aan ka dhigo okay aan siiyo qaybta kalena 0.5 aan ka dhigo si noqon karaa balan isla eegno waxaan ku leeyahay 2 mitir noqdo oo ku yaraaday blanki markaa dhismihii kasoo dhex bixi maayo view ku noqo haddana grid editing kabacdina 2 mitir caadi ah geli 2 mitir geli markaana 2 mitir geli okay hadda gridska caadi ku muuqdaa blanska gridska ku yaala qaybahan halkaasana waa elevationski iyaguna waa qaybaha muhiimka badanaa halka dhexdooda lagu sameeyaa dhismaha badanaa la isticmaalayo bal hadda aynu eegno haddaba waxyaabaha ugu muhiimsan ee soo ku raaca toolboxka baynu eegi doonaa iyaga waxaa ku guda jira dhammaan wixii lagu sameynayo dhammaystiran haddii aynu eegno wallska ugu horeeya wallska maxaa loo isticmaalaa sidee loo hagaajin karaa cabirada loo bedeli karaa loo kala dheer karaa qodobadaas isla eegi doonaa click baad siinaysaa 2 jeer wuxuu furaya markaa wallkaaga caadiya option labaad waad ku furan kartaa wallka ku dhufan kartaa deetana qaanada ku dhufan kartaa wallka caadiya kuu furmaya okay markuu wallka kuu furmo waxay ku xidhan tahay wallkaaga heightkiisa waa intee marka hore halkan waa tiraahdaa not link tiraahdaa marka heightka wallkaaga waa intee isticmaalaysaa ay ku xidhan tahay inagoo hadda 3 mitir baynu isticmaali doonaa intee dhulka ka xasaraan karaa dhulka laga sarraysiin karaa wuxuu bilaabmi karaa 0.45 afar milo jajura meelaha thicknesskiisa muxuu noqon karaa xabadan baad koonaha ku fulinaysaa thicknesskiisa waa kan thicknesska waxaa ka dhiganta 0.2 baynu ka dhiganayna isticmaali doonaa halkee laga sameynayaa
garoonkan ku samayn doonaa. Okay, wakaas wala inaagna daba qaabka aynu samayn doono. Waa kaakaas aynu ku dhufan karnaa, saasaynu oran karnaa wallkeeni. Wakaas haddana mid kale ku dhufan karnaa, sidaynu soo wadi karnaa, halkaasaynu mid kale kasii qaadi karnaa. Markaasuu ku joogaa, ku sheegi karaa laftarkiisu hadduu toosan yahay. Markaasaynu mid kale ka qaadi karnaa, kusoo xidhanaa. Okay, hadda wali caadi samaysan banaanano F3 ku dhufo. Waa kaa dhisankaaga bale orbit aynu wareejino. Markaas wallka jurkeena aynu samaynay, wargeysood guriga madid samaynay. Marka wuxuu ku siinaya hadda muuqaalkiisii. F2 badan kartaa haddii aad u baahatay laftarkeeda F2 iyo F2 wana oran kari maysid. halkaa 3D baa ku yaala ku siinaya, wakaas ku wareeji kartaa. halkan waxa kugu taala ground waad ku dhufan kartaa, ku siinaya. halkan waxa kugu yaala elevationska aad doonaysa inaad ka dhigatid, elevationska hadda wakaas. Okay, wallska wakaa hadda gidaarkii midabkaas inoo soo saaray. midabkan sidaynu uga bedeli karnaa ama midab kale uga dhigi karnaa. aan islaagno gidaarkan fill garayn doonaa, gidaarkan fill garayn doonaa, shift aynu oranaa, kaakna waan fill garaynaa, kaakna waan ku dhufanaa, kaana waan ku dhufanaa. afarta gidaarkiina dib soo keenanaa. waa cabirkaan gashanay 3 mitir ahaa. xaggana waa cabirkaan gashanay 0.2 ahaa. kaas waa cabirkeeni kale. modelskaasaan ku dhufanaa, dadna gidaariska u kala duwan yahay. saddexdaas option waxay ku siinayaan kala duwan. marka haddii aan ku dhufto halkaa yar link serviceska waa option kaarka isku noqonaya haddii kala duwanaa midabada kala duwanaanaya. keenaan ku dhufan hadda midabkaan ugu dhufo, kaa kale ugu dhufano, aynu midabkaas ka soo qaadano, midabkaan doono. aan labada midab isu eg yihiin, midabkaa baynu soo qaadano, halkana aynu midabkaa kala soo qaadano. 3 midabo kala duwan tusaale waxaan soo qaadan karnaa. Okay, waynu haddii haddaan ku dhufto wuxuu hoos ekaanayaa. haddii aan ka daayo laakiin midabadeena shaqashanay wey. Okay, hadda waad arki kartaa 3 midab inuu kuu muuqday. midab dibadda kaaga muuqday, midabna lidiisa kala raacay, midabna gudaha kaaga muuqda. kuwa midabadii kaadhiska haddaan ka dhignay. haddii aynu ku noqono wallkeeni mar labaad, waa midabiskiisa marba waxaad ka dhigtay kugu xirantay adigu. midabis yara muuqanaya aynu ka dhigno. halkaa aynu dhahnaba midabadaas aynu ka dhigno, kaana midabkaan iskaga dayno, kan laftarkiisa midabkii aynu kii hore ka dhignay aynu ku dhigno metalka ahaa. Okay, hadda halkaa midabkaas wada noqday, dhammaantiis halkaa midab wada noqday. halka midab baan ka wada dhignay suu dhan yahay gidaarkeeni. gidaarkaya midab halka midab baan ka wada dhignay. Okay, badanaa saas waxaa ku bedeli doontaa gidaarkaaga. waa gabadha bedeli kartaa, shapekiisa iyo qaabkiisa uga bedeli kartaa.